wasaaradda amniga gudaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay daahfuraysaa barnaamij cusub oo ah application sahlaya ama qayb ka qaadanaya in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay si fudud ula xiriiri karaan dhaqaatiirta si ay u helaan talo caafimaad. barnaamijkan cusub maanta aan daahfurayno wuxuu qayb ka qaadanayaa sahlidda shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ay si fudud u soo download-gareystaan application-kan isla markaana ay u raacaan steebyada la sheegi doono kadibna waxa u fudaan doona inay ogaadaan xaaladooda caafimaad haddii ay dareemaan qandho haddii ay u jiro qufac haddii uu jiro astaamo kale ay ka cabanayaan inay heli doonaan talo caafimaad oo waxaa diyaarsan dhaqaatiir isla markiiba siinaysa talo caafimaad qofka muwaadinka ah markuu programkan download gareysto uu raaco tilmaamaha wax weyn ayuu ka tari doonaa hawsha noo socotay oo ahayd in dadku ay soo wacaan call centerska kadibna ay talo caafimaad weydiistaan. barnaamijkan marka runtii aad u faahsan wasaaradda amniga gudaha waa qayb ka mid ah dadaalada ay hore u waday oo hadda jira inay ka fikirayso amniga shacabka Soomaaliyeed badqabkooda daryeelkooda iyo kaalinta aan ku leenahay runtii xagga amniga inaan runtii soo kordhino teknolojiyada cusub mar kastaba oo taasoo ah mid runtii waajib nagu ah muqadas maadaama aan u dhaaranay dalkeena Soomaaliyeed dadkeena inaan muxuu ahaa aan soo kordhino aan difaacno oo aan xag caafimaad xag bulsho xag amni dhan kastaba dalkeena Soomaaliyeed aan difaacno marka runtii waa qayb ka mid ah shaqooyinkeena caadiga ah ayaan soo kordhinay maanta marka programkan cusub oo maanta aan daahfurno runtii aad u faraxsanahay. Okay, marka koowaad waxaad tagaysaa Play Store-ka. marka Play Store-ka degtid kor baad tagaysaa magaca waxaa qoraysaa Border Community. Border Community meesha kugu soo qoray adis search baa leedahay. Okay, Border Community markuu buuxiyo waxaa leenahay meeshaas ku dhufanayna open baa leenahay. open markaa dhahno waxaa soo galnay page-kii ugu koowaad oo application-ka. waxaa muhiim ah inaad location-kaaga u ogolaatid application-kan. location-kaaga uu ku weydiinaa allow dheh. markaas kadib luqadaada dooro af Soomaali codka dooro waa af Soomaali xagga taabo. hadda page-kan waa page-ka qofkii account leh oo galo. account hore haddaa u samaysatay nambarkaaga iyo furaha sirka inta gelinaysaa. haddii kale account cusub aa samaysanaynaa. magacaaga saddexan lambarka telefoonkaaga waxaa gelinaa Maxamuud Ali Maxamuud. nambarkayga waa eber 6 eber 6 20 38 140. markaas waxaad dooranaa lib iyo dhadig waan gudbinaa. gudbi markaad dhahdid fariin message baa kugu soo dhacayso oo ku weydiinaysa nambarka binka geli. fariintii ayaa sugeynaa waa taas fariinta badbaado 449 fariintaa tegaynaa. waxaa arkaysaa binkii lagu soo diray 2657. haddaa dib u noqono binkaa gelinaynaa 2657 gudbi baa leenahay. wuxuu ku leeyahay furo sir cusub samayso. anigu si fudud baa kayga ka dhiganaa 1 2 3 4 1 2 3 4. hadda wuxuu noo gudbin doonaa page-kii koowaad oo markaas soo galna application. waxaa taabanaysaa digniin COVID-19. adiga ama qof aad ka turjumaysid miyaa dareemaysaa waxyaalaha hoos ku xusan. hadda qof aad dareemayso qof aad taabo
haddaa qandhad dareemayso qandhad taabo, haddaa daal dareemayso daal taabo, haddaa neef qabatoo ku hayso taabo, haddaa mid qaladay ka saar mise ka naqo. hadhowtii waxaa leedahay gudbi xogtaada, wuu ku weydiin ama hubtaa inaa xogtan gudbisid, haa mise mayo, waa gudbinaynaa annaga riboortkaaga baa la gudbinaa, fadlan sug ayuu leeyahay. xogtaada waxay ku dhici doontaa xarunta National Coordination Center la dhaho oo laga xukumo. xir baa leedahay intaas bas weeyaan. xarunta ka shaqeyn waxa waaye xarunta 449 qaasatan waxaa joognaa qaybta follow-up-ka loogu talagalay. xaruntan waxa waaye waa xarun bulshada u adeegayso oo waxay ka kooban tahay 2 qaybood, qayb oo bukaanada soo wacayaan oo bukaanada cabashadooda la soo qabanayo iyo qayb oo follow-up-ka ah. hadda maanta waxaa daahfureynaa oo nolol daahfuray anagoo naga caawinayso wasaaradda amniga application fududeey doono bulshadii inay cabashadooda kusoo gudbiyaan ayagoo applicationkaas mobilada ku isticmaali doono. dan kadib waxay ku qori doonaan qofkii waxyaalihii calaamadii isku arkay. dan kadib qofkaas uu gurigiisa joogo oo wuxuu noo soo diri doonaa markaas applicationka marka ugu dambeeyo reportka dhameeyo wuxuu dhihi doonaa okay. dan kadib anaga computer noogu soo dhici doontaa xogtiisa, dan waa qiimeyn doonaa bukaanka xogtiisa. waxaa noo kala baxay markaas inay noo noqoto 3 qaybood: bukaan xaaladiisa iskala dhaxad tahay, bukaan xaaladiisa normal tahay u baahan in guriga lagula tacaalo, iyo bukaan u baahan emergency in loo diro gargaar loo fidiyo. dan kadib marka xaaladda qiimeyno isla markii bukaanka waxaa sii doonaa jawaab ku habboon oo anigu haddana isticmaalayna through haddana technology. dan kadib waxaa dhihi doonaa bukaanka warbixintaada waa helnay, arintaasaana kuu qabanay. for example oo kale bukaanka xaaladihiisa wax iska yaraayeen, waxaa dhahanaa cabsi ma jirto, dhegeyso idaacadaha iyo awareness-ka wasaaradda caafimaadka bixinayaan, xaaladaas sidaas ula soco, taxadar guriga ka bixin. bukaankaas dhaana waa la hayaa tookadan, wuxuu u baahnaa in loo sameeyo gargaar degdeg ah oo xaaladiisa si hore way ka soo rantaasi. waxaa dhihi doonaa walaal waxaa jirada waa xanuunsan tahay, dan kadib xaaladaada mar walba mar ka dambeeyo waa la soco doonaa ilaa oo kaa ogaano inaa xaaladaada soo horeysay in kale. kaasoo kale waxaa dhihi doonaa markaas waxaa balmin doonaa, waxaa dhihi doonaa every 2 hour ama every 3 hour oo kusoo wici doonaa saa xaaladaada u qiimeyno. bukaanka saddexaad wuxuu noo noqon doonaa bukaan markuu nala soo xiriiro xaaladiis markaa qiimeyno kadib aa u aragnay bukaan isla hadda u baahan in loo fidiyo adeeg caafimaad. bukaankaas kale waxaa u sameynaa inaan ambulance u diyaarino, tiimka emergency hospitalka wargelino, dan bukaanka sida u dhaqsiyaha badan aan ku gaarno. dan kadib qaabkaasaa u sameynaynaa, dan bukaanka waa la soo qaadaa, waxaa loo diri doonaa hospitalka. labada bukaan oo kale oo aa dhahane kii aa dhahane waa isdeji aa dhahane kii kale hadday u baahdaan ay naga codsadaan in loo sameeyo baaritaan, waxaa ku xiri doonaa xarumihii loogu talagalay ka heli lahaayeen baaritaanada anagoo u qaban doono balantaasan qofka waxaa jecelnaa markaas inuu ku imaado. qofka hadduu waqtigiisa u gaari waayana dib aa loo wici doonaa oo la isi doono balantii waa la gaaray bal nala ogaago. applicationkan cusub wuxuu naga caawin doonaa markaas arrimahaas oo dhan inay si fudud u helno.